saraakiisha ciidamada Bileyska Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgal dhinaca amniga ah oo ay ciidamada Bileysku ku soo qabqabteen dhalinyaro ku baadhanaysay dad ku cibaadeysanayay masaajid ku yaala xaafadda Debla taagay ee magaalada Hargeysa waana kuwan taliye ku-xigeenka ciidamada Bileyska Soomaaliland Sarreeye Guuto Cabdiraxmaan Liibaan Axmed Fooxle iyo gaashaanle sare Faysal Xiis Cilmi afayeenka ciidamada Bileyska oo arrimahaasi ka hadlaya ciidanka Bileysku iyagoo ka sifeeyay kooxihii ku dagaalami jiray magaalada waxay bilaabeen kooxahaas dhalinyarada oo tamar darani inay masaajidada galaan kuwaasoo xalay galay masaajid ku yaala xaafadda Sheekh Nuur Debla taagay abaara 8 habeenimo isla markiiba ciidanka Bileysku ay ka howlgaleen waxaana gacanta lagu soo dhigay dhammaan eedeysanayaashii hawsha galay ama falka galay waana kuwan hortiina fadhiya waxa la isu qarinayo dambe jirto kii tuuga iyo kii wax kasta qarankan ku sameeya ciidanka Booliisku waxay howlgalada ku bartilmaamaysanayaan dhalinyarada kooxaha ee qaswayaasha ka ah oo markii magaalada looga adkaaday masaajidkii weeraraya dhalinyaradaas qaswayaasha waxay la yimaadeen taba cusub oo aynaan hore u arag masaajidada ay weerarayaan waxay ku weerarayaan tooshkaas oo aad arkayso halkaas waa laga charge gareynayaa halka mobilka la gelinayaa halka waa laga daarayaa waa laster dadka indhaha kaga qabanayaan idhuuba qofkii qalqalbi gelinaya qofkiiba indhihiisii halis buu ku jiraa waa uu dhabeelayaaba waxay kale ku weerarayaan faashish waxay dadka masaajidada ku cibaadeysanaya ee ilaahooda baraya waxay kaga qaadayaan moobilada qaaliga ay sitaan ciidanka Booliisku waxay dhalinyarada soo qabateen saa arkayseen waxay ka soo qaadeen masaajidka alaabtii ay ka carreeyeen shaatigii dacaskii wadinka arkaya waa wixii maraq muujinta loo hayay iyo maskaraadkaas oo ah kii ay indhaha gashanayeen iyagoo ujeedadu ay tahay inaan la fahmin yacni waa falal burcadnimo ah oo aanan weligeed hore u arag mar kale Sarreeye Guuto Cabdiraxmaan Liibaan Axmed Fooxle waxa uu ka hadlay howlgallada kale ay ciidamada Bileysku amniga ku adkaynayaan waxa kale oo howlgalkaas socda ka mid ah gaadiidkii sifaha sharci darrada ah lagu watay sida liisan la'aanta lambar la'aanta iyo buug la'aanta waxa kale oo jira gaadiid ka mid ah gaadiidka fidista maaha dhammaantood oo lagu sameeyo falal dhaqan xumo ah taasoo ay ciidanka Bileysku tallaabo ka qaadayaan ciddii lagu qabto gaashaanle sare Faysal Xiis Cilmi ayaa ugu dambeyn fariintani digniinta ah u diray waalidiinta dhashay dhalinyarada kooxaha ah ee rabshadaha ka wada xaafadaha magaalooyinka Soomaaliland waxay kaloo ciidanka Booliisku gacanta ku soo dhigeen intoodii badneed dhalinyaro baryahan dambe baabuurta xada oo furayaasha sameeysta iyagoo tuugada iyo furayaasha ka baranaya internetyada waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland war ubadkiina ilaashada oo meesha ay tagayaan ogaada Mukhtaar Mursal Xiin Home Cable TV Hargeysa.